السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا الله سوماليات ميل كستا جوجتان وانيغو معلي شريف فيديو غانو حانو كأيجينا وامحي بولينج سامين انتين لايك ايه كل هذاي عنو قلب بولي قري محو سامين كرا عنو قلب بولي قري والدك سيدوكو عاوين كرا المهيسة سيدوسة اشتكا فورمولا وقود بين كرا اسكولك ماركو هوري سبسكرايب سار جانل كان لنا وذاك ولا الله كالي si ay iyaguna uga faa'iideystaan commentina inoo dhaaf waa maxay bullying waxaa lagu qeexaa xoog sheegashada dabeecad hal qof ama dhowr qofood oo had iyo jeer lagu celceliyo taas oo si ula kac ah u dhaawacaysa qof kale jir ahaan ama shucuur ahaanba bullying waxay noqon kartaa in canuga ku turkutaan suuqa loo geliyo in la aflagaadeeyo in magacyo xunxun loogu yeero in la laado in la feero in la riixo in alaabtiisa ku talagal looga jabiyo in gooni laga dhigo oo aan loo ogolaan inuu soo dhaxgalo carruurta kale bullying waxay kaloo noqon kartaa in wax laga sheego canuga miisaankiisa jirka muuqaalkiisa iyo awoodiisa waxa uu sameyn karo iyo waxa uusan sameyn karin sidoo kale waa bullying haddii wax laga sheego canuga diintiisa isirkiisa reerkiisa caafimaadkiisa idaal daradiisa iyo lahjadiisaba qaabab kale oo bullying ahna way jiri karaan bullying ama xoog sheegashadu waxay ka dhici kartaa meel kasta sida iskoolka guriga ama internetkaba xoog sheegashadu marna ma noqon karto wax iska caadi ah oo waxaa jira qaabab badan oo lagu istaajin karo canugaaguna uu ku dareemayo kalsooni iyo inuu ku farxo naftiisa waa maxay cawaaqibka ka ratimaya carruurta la bulgareeyo waxay la kulmi karaan dhibaatooyin xagga jirka ah iyo kuwa caafimaadka maskaxda ah boqolkiiba 69 carruurta waddanka Ingiriiska waxay sheegeen in loo xoog sheegtay boqolkiiba 85 waalidiintuna waxay sheegeen inay u ashtokoodeen iskoolka ayagoo ka cabanaya carruurtooda oo la bulgareeyay boqolkiiba 20 carruurta la wareystay waxay sheegeen inay ayagu laftirkoodu ay wax bulgareeyeen halka shantii carruur bahal uu isku daldalay arrimo la xiriira bullying kala bar carruurtan waxaa soo gaaray dhaawacyo jismiga ah waxayna u baahdeen inay tagaan isbitaalka si loo daaweeyo boqolkiiba 3 dadka wax bulgareeya waxay isticmaaleen hub sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda OECD afartii carruuraba hal canug ayaa loogu xoog sheegtaa iskoolada waddankan Ingiriiska sanad kasta xoog sheegashadu ma sharciba bullying laftirkeedu sharci darro maaha laakiin qaybo ka mid ah ayaa sharci darro ah sida canuga oo loo soo diro taleefan looguna hanjabo sidoo kale haddii canuga loo soo diro fariin qoraal ah ama mid cod ah oo ujeedadoodu ay tahay in canuga lagu fadeexeeyo waa sharci darro marka la eego the Harassment Act, the Malicious Communications Act, and the Public Order Act. Canug kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo amaan marka uu joogo iskoolka. Canugaaga haddii la bulgareeyo waa inuu kuu sheegaa adiga ama uu u sheegaa qof uu ku kalsoon yahay oo ka mid ah shaqaalaha iskoolka. Ogow iskool kasta wuxuu leeyahay sharci looga hortagayo carruurta wax bulgareeya. Sidoo kale wax kasta bullying ma oran karno. Tusaale ahaan ciyaarta banooniga oo kale waa la isriixaa waana la isjalaafeeyaa taasoo kale bullying ma dhihi karno laakiin haddii canugaaga loogu yeero magacyo xunxun ama lagu maadeysto taas waa bullying muxuu sameyn karaa canugaaga haddii la bulgareeyo waa inuu isdifaacaa asagoo isticmaalaya cod dheer xanaaqna uusan wajigiisa ka muuqan yuusan oran hadallo xun si asaga laftirkiisa uusan dambi u galin yuusan isku dayin inuu ka aarsado haddii tiknoolajiyada la isticmaalay si asaga loogu bulgareeyo waa inuu screenshot ka qaato blogna saaro qofka bulgareynaya sidoo kale waa inuu kaydsado dhammaan cadeymaha uu tusiyo qof uu ku kalsoon yahay oo ka mid ah shaqaalaha iskoolka maxaad sameyn kartaa waalid ahaan haddaad u malayso in canugaaga la bulgareeyo
email u qor iskoolka. Emailkan ku faahfaahi inaad ka ashtakoonayso in canugaaga la buligareeyay. Ku sheeg waqtiga la buligareeyay canugaaga, cidda buligareysay, galaaska ay dhigtaan, waxa lagu yiri, goorta ee dhacday iyo cidda meeshaas joogtay marka la buligareynayo canugaaga. 7 maalmood ka warso. haddii aad war iyo wacaalo ka weyso 7daas maalmood, email labaad u dir oo ugu sheeg inaad email hore soo dirtay oo aad jawaab ka sugaysay. waxaa hubaal ah inaadba halkaas isla gaareen oo durbadiiba email ay kuu soo qorayaan, ay kugu dhigayaan ballan. marka iskoolka lagugu ballamiyo, qof wado oo ha la qoro wax kastoo ah ka wada hadasheen, warqadna ha lagu siiyo. hubi canugaaga cidda uu saaxiibka leeyahay, ma yihiin saaxiib wanaagsan oo lagu kalsoonaan karo. iskoolka adiga gee, kana soo wad galabtii ilaa arrintan xal laga gaarayo. la sheekayso canugaaga in badan adigoo dareensiinaya inuu yahay qof muhiim ah oo aad loo jecel yahay. subscribe saar channelkan, lana wadaag walaalaha kale si ay iyaguna uga faa'iidaystaan.